Hi, my name is Dr. Michael Doe. I'm a pediatrician with the Valleywise Health Pediatric Refugee Clinic. I'm here to share an important message with you about COVID-19, also known as the coronavirus infection. To tell you more about that, we have Olia. COVID-19 oo loo yaqaano coronavirus waa cudur neef-mareenka ku dhaca oo ku dhacay dad ku nool 178 waddan adduunka gudihiisa. Wuxuu ku jiraa gobolka Mareykanka oo idil. Fayraska waxaa loo malaynayaa inuu ku faafayo qof ilaa qof markii uu qofka cudurka qabo kugu qufaco ama kugu hindhiso. Wuxuu u noqon karaa mid si aad ah la iskugu qaadsiin karo, haddana ma jiro talaal looga hortago. Waxaan weli baranaynaa tabarta infection-kan. Mararka qaarkood wuxuu noqon karaa xanuun fudud sida hargabka caadiga ah ama xanuun fududayn sida infection-ka sanbabada oo aad u baahanaysid isbitaal in lagu seexiyo. Waxaa u fudud inay si xun u jiradaan dadka da'dooda ka weyn 60 sano iyo dadka qaba xaaladaha caafimaadka sida sokorta, cudurka wadnaha, HIV-ga, kansarka iyo dadka difaacooda daciifka ah. Laakiin waad ka taxdiri kartaa inaad naftaada iyo reerkaagaba badbaadisid. Marka hore, gurigaaga joog inta aad awoodid. Xitaa haddii carruurtaada aysan tagayn iskuulka. Hadda ma ahan xilliga ay ku ciyaari lahaayeen meel kasta ama ay booqan lahaayeen qosaskooda. Sababta aad guriga ooga baxaysid ha ahaato keliya markaad cunto soo iibsanaysid, markaad farmashiyaha aad daawo ka soo doonanaysid iyo markaad balanta dhakhtarka aad tegaysid. Haddaad aragto dad aad taqaano, fadlan assalaamu calaykum kor ka dheh, gacantooda ha taaban. Haddii aad guriga joogin, waa inaad isku daydaa si aad ooga fogaatid 6 talaabo ama 2 mitir dadka kale. Ku dhaq gacmahaaga biyo iyo saabuun si joogto ah. Mar kasto aad gacmaha dhaqanaysid, isku day inaad dhaqtid 20 ilbiriqsi. Hubso inaad nadiifiso gacmahaaga hore iyo dambe si looga hortago jeermiska si uu uga faafin dadka kale. Fadlan isticmaal maacuunta cuntada lagu gurto iyo qof waliba saxankiisa ha ku cuno. Haddii ay qufac ama hindhiso ku haysan, fadlan afkaada ku dabool xunsulkaaga si ay gacantaadu nadiif u ahaadaan. Si looga hortago jeermiska inuu jirkaaga galo, isku day inaadan wajigaaga taaban. Haddii ay ku hayso qandho, qufac cusub ama qufac ka sii daraya ama neefta ay ku qabato, fadlan gurigaaga joog oo waco dhakhtarkaaga. Waxay ku siin doonaan macluumaad dheeri ah oo ku saabsan haddii aad u baahan tahay in lagugu arko isbitaalka iyo haddii kale. Markaad raacdid tilmaamahan, waxaad ilaalinaysaa caafimaadka oo aad badbaadinaysaa qosaskaaga iyo bulshada oo idin. Haddii aad wax su'aalo aad qabtid, fadlan la xiriir dhakhtarkaaga.